قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا قيمون مثل سحب الشوق طرنا كالغمام وبإبداع سعينا للأمام ديننا دين الرقي والسلام إننا قوم خلقنا قيمون من قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله مدين فرديني واتمي معني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. waxaan iminkana u yeedhayaa guddoomiye maxamed yuusuf alloore oo insha allahu tacaala ereyo kooban soo dhoweyn doona martida isagaan uga baxaya hadalka. jazaak allahu khayran. soo dhowo. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaan dhammaantiin marti sharafta halkan iskugu timid aan ku soo dhoweynayaa anigoo ku hadlaya afka shirkadda Telesom oo ka kooban shirkado fara badan, anigoo ku hadlaya afka group Alloore ama Alloore group oo ay ka mid tahay fadhigan aynu fadhino oo la yiraahdo miyi iyo magaalo. waxaan isku soo dhaweynayaa culimada sharafta leh ee martida inoo ah ee dhulka fog inoogu yimid ee runtii maqaamka inaga joogaan aynaan halkan ku soo koobi karahayn. anigoo ugu horreysiinaya waxaan leeyahay ku soo dhawaada guri ka mid ah guryihii laydinku marti qaaday oo ah miyi iyo magaalo. waxaan leeyahay inta kale ay salaadiintu ugu horeyso ee ay ku xigaan mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan, wasiirka awqaafta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, maayarka magaalada oo inaga kacayo hawl yeeshay, iyo inta kale ee aanan tallada ay halkan ku fadhiyaan aanan koobi karahayn. waxaan idinku leeyahay dhammaantiin ku soo dhowaada martiqaadkan. runtii meel fog baa nooga timaadeen. ninka ugu dhowbaa Hargeysa bartankiisii ka yimid, qadadiisii ka yimid, shaqadiisii ka yimid. soo marteen runtii intaasoo dhib ah. waxaana noogu soo marteen inaan ugu maamustaan inaanu halkan idinku soo dhaweyno. waxaan leeyahay ku soo dhowaada miyi iyo magaalo iyo shirkadda Telesom iyo Alloore group. waxaa kaloo insha allah ayaguna martiqaadkan ugu maheliya oo ayaguna qayb weyn ka qaatay odayaal fara badan oo odayaasha reer Hargeysa ah. insha allah kelmadoodana Ismaaciil ayaa ku hadli doona. markaa waxa aan jecelahay miyi iyo magaalo hoolkan oo qura ma aha,
way ballaaran tahay meel ciyaaro ay leedahay meel waxay leedahay dadku ay seexdaan oo hurdooyina waxay leedahay meelo ay ku nastaan marka intii waqtigu u saamaxo inaan idin soo marino oo aanu idin tusino ayaanu jecel lahay waxaan leeyahay culimada halkaa nooga timid ilaa intaa soo socotay ama Afrika ha ka yimaadeen ama Yurub ha ka yimaadeen ama ha ka yimaadeen Carab inta doonaan ha ka yimaadeen khudbada aqaadeen kuwada ayaan culimada leenahay haddaanu ka gaabinay soo dhaweyntii iyo martiqaadkiina tasaamix noo sameeya marka insha Allah imahaasan kaga baxaya mar labaad iyo mar saddexaadba martida sharafta leh anigoo magacyada qolyaha ku hadlaya waxaan leeyahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh maxamed uu mahadsan yahay jazaahu allahu khayran waqtigayna haya oo soo gaagaabinaynaa culimada martida ah marka laga reebo qolooyinkeenna magaalada degan si gaara laynoogu tilmaamay hodheelka iyo qaababkiisa marka la leeyahay hurduu leeyahayna de waa fariin ogaada marka la hurduu leeyahay waa fariin culus marka ragga wixii isla hayaa dee hoosta ka xariiqaya magaaladana waa ka soo baxsan yahay ogaada intaas oo iga kaftan waxaan u gelayaa ismaaciil cabdi xasan oo odayaasha ka mid ah isna kelmad kooban buu inoo odhan doonaa baaraka allah fiik بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين marka hore ilaahay baynu u mahadnaqaynaa isku keenay halkan aynu ku soo dhaweynayno culimadeena qaaliga ah ee martida aynu baynu u mahadnaqaynaa ilaahay isku keenay ugu horeyn wasiirka diinta iyo cuqaafta wasiir ku-xigeenka iyo maayirka iyo saadiinta iyo marti sharafta kaleba dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii culimadan safarka dheer soo martay dad badan oo halkan jooga iyo dad badan oo aan inala jooginba waxay aada u jeclaayeen qof waliba inuu gaar u casuumo meel geeyo dabeetana soo dhoweeyo waana naga mudantiin tan iyo mid ka weyn in laydiin sameeyo waayo wixii maaragtay intii aan nala joogteen wixii aa qabateen iyo dadku marka ay ummadda muslimiintu markay isku yimaadaan ay wax dhaqdhaqaajiyaan baa wax badan maaragtay ay wax u taraya markaa culimada waxaan leeyahay tan ammaanta inay noo sii badato oo mar walba ay noqoto runtii qabanqaabadii iyo ciddii ka qayb qaadatay ee hawshanna soo gaadhsiisay annagoo ay ahayd inaanu annagu ka qayb qaadanno aanu annagu dhaqaajino aanu annagu u dadaalno haddana waxaan maaragtay rag baa ilaahay soo maaragtay dhex mariyey nin meel dheer ka yimi maaragtay ansaarul sunna ayaa maaragtay noo qabanqaabiyey oo ninkaa jananka ah ee maaragtay cabdirashiid jiir janankiina waa tii la ansixiyey mar hadduu madaxweynuhu ku dhawaaqay dee waa janankii halkaas unbaa mar walba jananku waa kaas ka cabdirasaaq baan ujeedaa soreyn ha marka insha allahu meel maaragtay ka keena marka waxaan leeyahay mar dambe noqon maysa insha allah waa sii diyaar garoobayna runtii waxaanu weelayn doonaa intii aad joogteen wixii maaragtay muxaadirooyin idinka baxay ee maaragtay qiimaha lahay ee aad nagula hadasheen dhammaan dadku markaa waanu aad baanu u weelayn doonaa waanay wax badan baanay naga kicis waxaanad moodaa inay waktigeedii kusoo beegantayoo dalalka had iyo jeeraale marka ay ka dhacaan doorashooyin wax badan baa dhaca marka waktigii waa noo sii yar xaadheen oo roobku markuu meel xaadho wax maaragtay wixii yaraayee sii jiray baa maaragtay noo sii gaadhsiino wax badan bay noo tartay wax badan baa wadankana kusoo xulon haddii aan muslimiintu layska kaashanaan culimadu waxaanu nidhaha culimadu hadday sidanoo kale usoo baxaysa beri hore abay dadku wada jaan qaadi lahayd oo rag iyo dumar dhallinyaradii maanta waa ogtira xaalado adag baynu ku jiraa dhallinyaradeenna halkay maraysa waa ogyihiin markii hore waxaanu markii hore odhan jirnay yurubta iyo waxbaa dadkaa yurubta ka yimaada iyo dhallinyaradaasaan odhan jiray laakiin maanta marka dhallinyarada loo eego soomaaliya joogta xaaladooda waa la ogyahay siday yihiin marka waxay u baahan yihiin wacdi badan iyo in aada loola hadlo dadkii dee wax kale wax ka qaadi maayo dhegahan ay maqlayaan unbaa saameyn ku yeelanaya qofka wuxuu maqlaa unbuu dhegihiisana ay qaadaysaa amba maskaxdiisu ay qaadaysaa runtii halkan waxaa fadhiyo niman sadaadiina oo maaragtay odayaala oo isku xilqaamay inay ka shaqeeyaan arrimaha oo maaragtay beryahanba hawshaa waday waxaanu markaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonaa intii aan nala hadashay wacdiyadii baxay inaanu annaguna ka daba tagno oonu sii qaadno aanu hawshaa sii dhaqaajino aada iyo aad baana u mahadsantihiin khayr allah idin siiyo culimadii baa joogto oo dee mar hadday culimadu joogto inay culimadu aanu dhegaysanun bay ahayd oo ayaga aanu dhegaha u furno oo inaanu ka hor hadalno maadaama raggii karaamada lahaayee sharafta lahaayee culimado meel dheerna ka yimi
waxay maaragtay tahay markaa waa naga soo dhaweynuun dadka halkan jooga ee mudnaa inay maaragtay waxa lagu yidhi culimmadu way tegayaan waqtina waa kooban yahay dadkii intii mudnayd ee doonaysay inay soo dhaweyso amba in badan oo doonaysa in halkan ka hadashino maadaama waqtigu kooban yahay meel dheerna ay ka yimaadeen waxaan idin leenahay way ka geysan tahay dhammaantiinna waan idin salaamaya khayr allah idin siiyo culimmada inoo timi iyo culimmadeennii hore u joogtay ee dadaalka badnayd ee mar walba inoo waday ay nala dadaalaysa inaynu inaguna culimmada iska rab taagno aynu maaragtay dhegaysano sheekhu haddii la dhegaysto la taageero waxa u taageeraa inaad dhegaysato wixiisana aad weelayso qalbigaagana aad ku qaado dabeetana aad sii gudbiso haddaad ka bilowdo qoyskaaga amba gurigaaga aad ka bilowdo amba xaruurtaada aad ka bilowdo waxbaad qabatay marka waxaan leeyahay khayr allah idin siiyo jasaakumullahu khayran hawl weyn baa nagaga tagteen waana idinagu soo noqon mayso safarkii horreeyey aa nagaga tegaysaanoo odhan mayno waa sii ababaxaysaan mar walba waan idin soo dhaweynayna waa nala joogtaan naguna soo noqda haddaanu nahay ganacsatada iyo odayaashana wixii dambe dee annaga isbaabilayno safar dambe noo iman maayo annagoo degan baa naloo imanaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kadibna waxaan halkan ugu mahad celinayaa culimada suldaan barre ayaan insha allahu isagana ku labaynaynaa kol hadduu suldaan daawud inoo soo gaabiyey intii uu beekhaamiyey baynu kusii baritaaraynaa suldaan barre ha kusoo dhawaado baaraka allah fiikum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ديات سود وينيا ولما شرفت عليه عالمك كالسعودة عرب هديتاي أفريقيا هديتاي يوروب هديتاي سويني نقول صوب أخذ عاصمة دي هرقيسة آدي بان سود وينيا إيش وحوي وسودوين الديريم يالو لا وعن كبري نسلا نقول ما دنا شرفت على قيمة عليه إنه يشترك السيابة الكسر إلى هاي بعد السيناء الجو حوي كم من هاي كهذا يا صرادين تا لغنك يوم الجديد أفكار ما كهذا يا حاولت كسرنا يا وحويان تطيع عيالك ها يا حشيشات يا كابها هذا وحي أين هاي كرها لهاي نقول كرها لهاي ما وضع الصوكر لأنه وحنا كنا اللي محاينا جاب جانا هركان وحنا كسرنا هاي هنا مخرجنا وحنا ما وحكت وين محاينا هذا بلا إسكاي هؤلاء قابل سنة وحكوين يدي قاصينه فرقان كانوا سيدا درست بان السؤال باب اللي وحنا بلا دكبر تاعنا حكومة هي هذا خصوصا نبتقليدو يا رب برتاعنا ثلاثين تا سبب لي يرى ما نقية عاديات شركة هل كان أيضا إذا عاصرة أو نلك إذا شوقين وودا كان مجالا يطول من هاي هل كفرس ما أنت وحويان وتلو صوت الحسية وحويان السولوينية شركة هي مقعد وسولوينية وكان نصيب لو صار رأي كلن كي إسلام كا أول كسر مقالة أيوة محايد هذه هريري هيدا سنة دي ودم يواتي هالك لو صار نصيب بيتانا ويراتين لو سو جورو أو خير كاسين ودشوا دي ما دي وايد المهندق يا هيدين كنا waxaan ku soo ururinayaa soo dhawaada guri kale ma joogto waa gurigiini aad iyo aad baan ugu farxsanahay guri baan joogaado dabeedna dumarkii oo dhan baa yidhi maxaadarada ayaanu ka qayb gelayna duhurkii intay naga tagay iyo maqribkii iyo noo yimaadeen intaa waxay dhegaysanayeen hadarada iyo sharafta meesha iyo macaalinta iyo wanaagga ka soconay yaa dadkaasi dhegaysanayay annaguna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wax badan baa hawsha ay ka qabatay iyo maaragtay dadkii qalbigooda laga yaabay dad badan oo qalbigiisa sii jeeday waxaa ku dhex jiray in ilaahay kaga saaro waba suuragal weyn aad baan ugu rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suldaanku aad buu mahadsan yahay mowduuca inoo sheegay ee ah inay salaadiintii iyo madax dhaqameedkii
ay ka hortagayaan balwaddii iyo mukhaadaraadkuna waa tallaabo aada u weyn oo u baahan bogaadin iyo dhiirigelin iyo garab istaag. waxaan u wareegayaa qaybta martida. waxaan filaya inaan jananka cid kaga hor dhufanayn. cabdirasaaq waxaan filaya brigadiad kaga tegi doonto dhowaan. janan waa la iskala tegaya. soo dhawow haa shala major janala maasha allah. fadal cabdirasaaq, allah ybarak fiikum. dumarkii joogay inay maalin walba ka dhaqaaqiyeen dee mudane muuse madaxweyneheenana iridee uga gashay iyo ma aqaan daaqadahaba inay uga daadatay. madaxtooyadii way gashay, tujaartii bay u gashay. maxay ahayday suuqi intaanu maraynay meelaan marraba hadda ay noogu dambeysay intaan soo soconnay sheekh cabdirashiid iyo sheekh yahay cabdirasaaq khayr allah siiyo. martidaynu kusii soconaynaaye doctor cabdiraxmaan yuusuf abukar oo ka mid iyaguna martida iyo aqoon-yahanka dalkayna la jooga professor jaamacadeedna ah ayaan soo dhaweynayaa isaguna kelmad kooban. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان وفي شرفت هل كان شوفتا علماء الدينك صلاطينتا وسيردا مايركا مقالة هرقيسا أماتي وسلامتهين. أنا وحن دونينا وكدر عدكا سودوينتا إن نيدكو سودويا ما نيدكو سودوينو يعني مقالة هرقيسا وتمر قيمة له أو قائلة هي كدعي إلهي سبحانه وتعالى وحكبرية إن التي تشوف في عن لقل صوت حي. كلمة دي رقابا بعنا نوكسو ورنايا أنت أنا كلمة دي ورنا يعني هدانك ماركتي لا ماني لا برنتي mahadnaq ballaaran shirkadda telesom iyo shirkadda maxamed yuusuf alloore yani martiqaadkan sharafta leh suurto gelisay iyagana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala jasaa idan ka siiyo miisaanka xasanaadkiinana ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku daro. anigoo aan runtii jeclayn inaan idhaa waxaan ku hadlayaa bahda ama afka waxbarashada bahda waxbarashada. haddana waxaan ahay qof waxbarasho ku dhex jira, macallin jaamacadeed. halkanna yani productskii ama nataa'ijtii ay soo saartay magaaladani ka mid ah oo halkan aan ku soo barbaaray waxbarashadeeda aan ku soo qaatay. marka anigoo ku hadlaya magaca bahda waxbarashada waxaan leeyahay آية قرآن إلهي سبحانه وتعالى وحكيدي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير فربضن من نفرادينينا لكن إلهي سبحانه وتعالى وحويدي تغييركو وحكي منايا إذنك نفتينا ما لها وقوة وين وكي منايا وحويان دعيرتا يا سيدي وحلو بري لها تربية دعيرتا تربية وحبر شكل يماها وبربارين داعيرتا iyo ubadkeena aynu ku barbaarino islaamka iyo akhlaaqiyadkiisa iyo waxbarashada maadiga iyo waxbarashada muxuu ahaa yani diiniga labadaba anagu saasaan ku soo barbaaray. yani ilaahay subxaana wa tacaala maadee ka gaadho muddo 50 sano ka hor yani 50 sano taqriiban ama 50 sanoba ayaan anigu ka mid noqday ma aan ku beeray dhalinyaradii saxwada barigaas yani magaaladan hargeysa ka bilowday markii dambena ku fidisay gobolada bariga iyo gobolada galbeedka yani Somaliland. xarakada islaamigana waxa weyn xarakadii badbaadisay qaranka Soomaaliyeed ama Soomaaliya ama Somaliland intii uu burburku maaragtay yani ku dhacay. majaalaadka ay buuxiyeen ama xagga waxbarashada ama caafimaadka ama ganacsiga waa la wada ogyahay, wax la isaga sheekeynaya maaha. oo dee tan aynu joognaaba runtii maanta aynu goobjooga u nahay baa ka mid ah. marka isbeddel haddaynu doonayno ilaahay subxaana wa tacaala samada kama soo dejinayo. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin
ilaahay wuu kari karaa dabcan in allah calaa kulli shayin qadiir inuu waxaynaan iminka filayn ama si aynaan u filayn wax degdeg oo isbeddela keeno laakiin waa sunna min sunan illahi subxaana wa tacaala in isbeddelku ummadaha ka yimaado isbeddelku haddaanu inaga iman maaragtay yani ma dhacay iskama imanayo cirka kama soo degayo isbeddelka ugu weynana waxa weeyaan isbeddelka lagu samaynayo da'yarta iyo dhallinyarada marka anigoon doonayn runtii inaan ku dheeraado way mahadsan yihiin yani al-ustaad cabdirasaaq iminka halkan ka hadlayey arrintaa uu ka dhawaajiyey daroogada iyo sidii loola dagaalamaya waa qayb yaroo ka mid ah barnaamijka aynu doonayno maaragtay yani tagyiirkaas lagu sameeyo marka taasaan ana jeclaa inaan idinku baraarujiyo wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullah waxaan u yeedhayaa doctor cali maxamed saalex oo isaguna kelmadda ku qoran falyatafadal doctoru mashkuuran الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد run ahaantii meel aan ka bilaabo hadalka ma garan karo maxaa yeelay waxaa meel walbaba runtii aanu kala kulannay soo dhaweyn aad iyo aad runtii qadarteeda leh dhan walbaba walilahi alxamdu taana runtii waxay muujinaysaa dadka aan u nimid inay yihiin ahalkeenna meesha aanu eegyaha dhiganna inay tahay meeshii munaasibka ahayd in aanu lugaha soo dhigina magaaladii dacwada run ahaantii cilmi ka maqan reer hargeysa maynaan keenin culummo laga waayana inagu ma yihiin cilmiga halkan buu joogaa culimmadii waxayna bartida meesha degan keliya waxay tahay un keliya in ma aragtay laysku weheshado calaa maa'idati alcilmi laysa ilaa taa un baa keenaysa marka waxaanu meesha la nimid oo mudaakaro inaan ka sheekaysanno ilaahay subxaana wa tacaala isxusuusinno maalmihii iyadu farax bitiriska ahayd ee koobnayda meesha aanu joognana intii un baanu ku dulxoomayna wax cusub maynaan keenin gabadii waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaana wa tacala haydin barakeeyo xukuumadana shacban ilaah haydin barakeeyo culamaa iyo caama ilaahayna barakeeyo dhammaantiin wajazaakum allahu khayran الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أولا دمان أنا وكلا قاد قادهن علماء مدحي من جرح الركان يا قلقان ولا سلامتين سلام الله تخشاكم ورب العرش يرعاكم من المكروه نجاكم أطال الله محياكم محياكم وبياكم تاكدب قلي وتلميذ يسمع الأساتذة إن شيخي أكوهر هذا ما ندون إني علماء إلهي بأن أمهد علينا أولا شكره صدح قيبود وي اعتراف النعمة نعمة إلهي وانقرنه استخدامها فيما يرضي الله إلهي ماشى وكرالية كي هاي والنعمة الله ديقو الثناء على الله مروا بالله إلا أمانه ذلك شاكرين هذا إلهي باجعل الله ينقدقو وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين أليس الله بيعلم بالشاكرين فخذ ما أتيتكم من الشاكرين بل الله فعلكم من الشاكرين وكو علماء إنه تمد iyo insha Allah taala odayaasha iyo salaadiinta iyo shirkadaba waan u mahad celinaynaa iclaan yar baan insha Allah taala anigu aan ku darsan lahaa maadaama sheekhu joogo suldaanka ayaa sheegay kulay ijtimaaci hargeysa wuxuu dhici doonaa bisha September 23keeda marka kulligiin inaad ka soo wada qayb gashaan inta aan baan u soo duubtay iyo haddaan soo kacay tabliiq tashkiil laga waayo islaan caado laga waayo way tabliiq walaha waa kasiyo marka inaan iswada diyaarino midda un baan idin yar sheegi lahaa ta kale anigu labada dhinacba Somaliland rawaan ahay xagga kililkana waa insha Allah isagana waa sidaas oo wada ka soo booqanay sidan oo kalena bal mu'tamarkan inaad culimada noo yar tashkiilisaan oo halkan loogu yimaadaan waa idinka rajaynaynaa arrintaana waa idinku mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ta kale walaalayaal arrimaha laga hadlahayo wax walba wuxuu qiimaha ku leeyahay sifadiisa marka laga helo makarafoonkan hadduu hadli waayo wuu qiimo dhacaya leyrka haddii iftiin laga waayo wuu qiimo dhacaya موبايلك هدو هدو وايو وقيمة دعايا هدي سكرت معان لقوا وايو وقيمة دعي أنا هدي ملك لقوا وايو هدي قالوا سعوا وايو هدو موبايلك هدو وايو ده وحيكو قيمة سيهنا ودينته سنة النبي قال نسكو ميزانا نسكو سرجرة نسكو ديرينو حتى نصار دينته عقدتي همبوري هبوق وان كيلالينو هذا الكائن يا فكر كائن يا سعد كائن يا جيف كائن يا دقائق كائن يا دقن كائن يا فرد كائن يا فقينا أكيد نميد له هالك هي هاي إن أصلا يلوسو ديار من إن شاء الله الله يتوفق
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خيارتك الجبن يا ملحظة يا صلاة ملحظة لكن كان ملحظة حكومتها ملحظة قناعسية دنيانا يوهيلك صحافة دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سيتيغا نصح يا مهما هذه قبلة بكفتة الإنسان عادة لقوي ما بيجي تبغي إذا عادة لقوي لا عادة ما راح هسوه سواء كفتة وسعي وين أتوزن وين أتوزن وين أتوزن واحد صح عليه شعبان شعبان ويجي يعني وين سواء كفتة لكل مقام ما أنت مقام كان تشوفه مقام مهذبة ومقام شكري ومقام حسوسين هدي شكر هاي الناس العاديين تيجي ورسالة تدي يو شيخ الناس تجاوي يو لما بيتي كعذبة واحد مهذب لا يوم مهذب وهرين من بعدنا يوم مهذب العد مرتقل يسوي علومنا بس لحد علومدي يو سو سكلفي عروت هودي هوبت هودي ريرو هودي يو صعق ده نو صوت علي كيمي أيوة ما هنقينا حلو إن هذه كاباريو هرجيس وحلو بهاي النقطة إن خصوصا ده يعني اللي تشوفه كل فلاني تيجي حلو تيجي وهو يقفل وحنا يعني وهو يتعود عليه هرجيس وحلو بدلنا وهو يتعود والدين تيجي لهاي اللي سكوا حسنيه ويسكرب جليه وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو هي سنة أنت الفريمي وحقق ما بقولك المدينة أنت إذا قال لي ولكن وعليه تنسم أيلود يارين هذه قيمة بدني وأشرف كرامة أهيد لكن هو حق حس بدن كنا قيمة بدن كلمات كانوا سبولين أهيد ما هنق إلى نحسسنه إيه نسبعدينه إيه وحنا قد ما نشرناه وحنا سنة إلى يوم هذا علينا سبحانه وتعالى أنت أصيب كوابنت هاي وحمر بعض دعائنا جود أهان شركة تلسم اللور جروب أروم تي بي مجالا إنه كوسو فيكم بتكلم إنه شيء كفتمينا إيه كستوري هالكيساني بصير كأغاني لكن وحاولنا هاي حتى كل استوى هيك مجالي مجال وين وديا أنا بس استوى هاي روح على السود هذا السنة وحاولنا الله عافمة ديك أبوسيو عافمة الله فوزياديو لا عذر هذا قاضو إنتنا بقتنا سوا حاضرتنا متعلينا كبر الشيخ عبد الرشيد دعاء لكن هو سير دقاتنا يا أولي إن الله سبحانه وتعالى ما أنت مبارك يا بتشيننا إلهي نحن كبر إلهي كل مرة وبناجة وخير نسوني مع الله عبد الله يوسف بكر شيخ محمد عبد الرحمن يوسف بكر ودول مر هذا وهو معلم فعوي وهو رجيت تواتنات كي تعود الإسلام كلي تدخل واحد حريب وكم لها تابعين تروح حريب وكم لها مركز ما نقول دور ستيت دور ستيت سنود من جنب غيره ستيت ما كريم ما ستيت ما طبيعي ستيت كي مركي أنا في العربة خلني أيوة سنة مريك النووي ذاتي وهكذا كان عندك غير بروفيسور خلنا غير ملاقو خاطر سنة عالم كده يقول لي مهما بدنا حكى ما خلنا هذا وحوين شغل هذا أيوة كثر شقيقي وأنا أقويها نكوف تعالى نكوف يصير فرصة ورنتي يلا يلاحظوا أنتوا نولد شغلية وقدام وحنا يترسوا تركيزتي الحمد لله الله خير بسيو عدة سو حادثة حنا هاي وين أشياء وين جزاكم الله خيرا وهذا أفضل الشكر جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وحاهرت آديات وحلقوا فرحاء إن عدوى الباء استقف والباء استاقى وهرت إلهي كم هذه رب العالمين ملك الملوك ذو الجلال والإكرام ما هدي سينا وحكا استقوهر مرينو شكري نعمة إلهي مكو بكرنو رقي دينتا نسو قارسيي تضحيوضي هري نفتودي مالكوذا رضي الله عنهم أصحابتي النبي رضي الله عنهم وأرضاهم waxaan xusuustay marka qaarkii casuumadaha iyo tan oo kale iyo aan arko in badan oo cunadii ama cabidii oo la soo habeeyay oo laga dhargay al-Miqdaad ibn al-Aswad radiyallahu anhu
oo saxaabada ka mid ahaa nin kaftamana ahaa ayaa wuxuu yidhi aniga iyo laba kale oo aan saaxiibba nahay ba intay gaajadii naga badatay baanu indhihii iyo dhagihiiba wax ka qaban weyne indhihiina wax ka arki weyne dhagihiina wax ka maqli weyne waddadaanu saxaabadii u joogsanay cidna qaabisha waa weyne nebigaana gartay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam waana kaxeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam daaraddiisa oo ri ay ku xidhan tahay buu yidhi ridaa caanaha laga maalo waa inoo dhex ka caba oo labadiinuna saddexdiinu caanaha markaa aad ka maashaan idinku halkaa ka caba ani qaybteedana ii reeba saasaanu ku heshiinay buu yidhi sal alla alay slam marka waa iman jirray ridaasaanu maali jirray waanu cabi jirnay han badana nebigaan u reebi jirnay buu yidhi sal allahu alayh wasalam markaa nebigu waa soo daahi jiray buu yidhi goordan buu iman jiray markaa uu yimaado salaam wuxuuna salaamaa buu yidhi yusmicu lyaqadaan walaa yuuqidu naa'im kan soo jeedana uu maqashiinayo kan hurdana uuna ku kicinayn habeen baa shaydaanku u yimid buu yidhi miqdaad baa iska sheekaynaya waa arrintaan uga good leeyahay nicmada ilaahayna siiyey shukrigeeda aanaan koobi karin shaydaanka ay yimid wuxuu igu yidhi buu yidhi canihii markii aan qaybtaydii cabbi oo intii nebiga u hadhay wuxuu igu yidhi buu yidhi shaydaanka igu yidhi buu yidhi hadda rasuulka waa rasuulullahi oo waa la jecel yaho meelo badan baa wax laga soo siinayaa canaha maad ka cabtid famaa zaala shaydaanu bi buu yidhi kama zuulin inuu igu tirtirsiiyo inaan caanihii nebiga ka cabo xataa sharibtu ilaa aan ka cabbi famaa an tagalgala labanu fii batni buu yidhi caanihii markii calooshayda soomaaliga waaba iska ililoobay maxaa loo nashay cabdiraxmaan oo halkaa mareen muddaanu maqnayna soomaaliga haddaanu yar deedeyeyna wixii marka akhadanii nadamu buu yidhi markii caanihii calooshayda galeen wey ayaa nadam iyo tiiraanyo iyo shallayto tii ugu dambeysay qabato waxaan idhi buu yidhi alla ilahay maantaad halaagsantay miqdaadow rasuulku hadduu imanaya calayhi salaatu wasalaam caanihiisii markuu waayana wuu ku habaari hadduu ku habaarana adduun iyo aakhiraba waad khasaartay wuxuu yidhi amaa saaxiiba iyo labadii saaxiib ee walaalahay ahaa fanaama waa sexdeen waa gameen ama anigu soo ma aha waan galgelinaya caawo dhan waxaa islahaa goormuu habaarku kugu dhici doonaa ilaa uu nebigu ka yimid sala allahu calayhi wasalam oo sidii caadadiisa ahayd yusmicu lyaqadaan walaa yuuqidu naa'im meeshii weelkii buu tegey caanihiisii saa markii uu qaaday buu yidhi lam yajid fiihi shayan waxba kumuu helin ila waa anaa ka cabay markaasuu nebigu sal alla alay slam gacmihiisa kor u qaaday buu yidhi waa ducaystay markaasaan waxaan siri buu yidhi al'aana halagta ya miqdaad hadday kuu dhammaatay suu nebigu hadduuba ku habaaraya bas way kuu dhammaatay muxuu nebigu yidhi wuxuu ku ducaystay allaahuma acim man acamanii wasqi man saqaanii allahuma acim man acamanii kan iquudiye ilaahu quudi kan i waraabiye ilaahu la waraabi waana saan ku ducaynayna in sha allahu tacaala anuura wajamaacatuhu watarisum acim man acamana wasqi man saqaana ka bacdi nebigu markuu saa yidhi bal u fiirsada nimankaas duca nebi way dhacday inay dhulka gaadhama doonayo faqrina wuxuu ka taagan yahay halkaa inuu caanihii nebiga cabay soo maaha haddana wuxuu yidhi ducadaasi alla ilahaysay dhaafin oo nebiga maanta aan quudiyo muxuu ku quudin mindi baa qaatay buu yidhi xagee buu u socdaa ridii buu u socdaa ridii uusan isagu lahayn sayna ducadaa u dhaafin ayaan xaggeeda u cararay buu yidhi inaan gowraco oo maaragtay u qala nebiga calayhi salaatu wasalaam saa haddaan ridii u imidba candhadeediiba caanaha ka buuxa faidaa xufalun dircuhaa xufalun min allabani waan yaabay markaasaa wuxuu yidhi weelkii aanu haysanay kuma filla fadalabtu inaa liaali muxamed weel weyn oo reer nebi moxamed leeyihiin baan doontay caanihii baan soo lisay waanu keenay ishrab yaa rasuula allah cab markaasuu yidhi bal labadeenna saaxiibna kici aan wada cabne markaasaan ibu laa xaajata lii bihima iga daaha iga jifeene aduu ii cab horta markaasuu cabay buu nebigu calayh isalaatu wasalaam warkaas uu igu celiyaa war labada nin maa noo soo kacaysid maya iga daaya rasuul allah bal adag horta ii cab ilaa aan markaan raalli ka noqday buu yidhi nebigu suu caanaha u cabay ee u dhargay fartamaytu cala alardi min addaxiki dhulkan qosol la dhacay buu yidhi kolkaasuu nebigu yidhi buu yidhi ixdaa saw-aatika yaa miqdaad waxyaalihii aad lakhtabayn jirtay khaladaadkaagii mid ka mida weeye miqdaadow ii sheeg maxaad samaysay maanta waxaad la qoslayso markaasaan uga sheekeeyey yaa rasuul allah saasaa dhacday shaydaankii baa caawa saa yidhi marka waa kaa inaad habaartaan ka cabsaday
markaasuu nebigu qoslo wuxuu yidhi waa raxmad iyo risqi ilaahayna siiyey orodoo labadana saaxiibna soo kici waan ka wada dhargaynahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa idinku dheereeyey dabcan idinku dheereeya ma ahayn laakiin sheeko xiisalay ahayd waana xadiid saxiixa mashaayikhdu ay ku noqon karaan fi sixaax in sha allah waxaan ka wadaa nicmada maanta ilaahayna siiyey ee meel kasta cuntadiisaa loo soo hambaynayo ee risqiga ilaahay noo waasiciyey ee ilaahay cirka iyo dhulkaba nagu quudiyey cirka dushiisana cunto nagu siiyey iyo jif iyo cabid iyo wax kaste dhulka meel kaste ilaahay nagu arsuqay waa inay shukrigeesa iyo mahadnaqeennu uu ka bataa maba ka badan karee asxaabtii nebiga radia allahu canhum wadadoodii aan marnaa oo ilaahay ku shukrina subxaanahu watacaala wa min acdami shukrihiina waa shaqadan hadda aynu isugu nimid oo fii sabiili illahi aynu isugu nimid oo ilaahay dartiisa aynu isugu nimid walitabliiqi diin illahi aynu isugu nimid iyo dacwada aynu usoo baxnay ee khayrkaa halkaa ummadda aynu maaragtay isugu sheegaynay wallaahi uma wallaahi baan ku dhaartay haddaanan islahayn ana shakhsiyan wadaadadaas lagu ibtileeyey baan ka mid ahay inay wax sheegsheegaan haddaanan islahayn maanta adaa faa'iidaysanaya wallahi inaana soo baxin faa'iidaan u imid inaan faa'iidaystaan u imid faa'ida samaaciyaan u imid faa'ida baraka iyo ducada iyo muslimiinta walaalahay meesha isugu imanayaan ayaan u imid khayr fara badan 93 hargeysaan imid ma idinka soo gaabiya waa sheekadu ugu dheeraatay jamaaco qadariyiin oo fii sabiilillahi u socoto horta anigu 92 bilowgiisii baan qadar tegey 91 iska dhe laakiin 92 bilowgiisii hal sano baanu joogin yaa jamaaco qadariyiin 5 qadariyiin iyo mid masri ah waxay dhaheen waxaan u soconaa Soomaaliya u soconaa war ma meeshan ka soo cararnay baad u socotaan ha wallahi inaan idinka haro waa igu dambi waaya inakeen wayse soo raacnay berberaan ka soo degnay aad bay u kululayd dee mukayif iyo waxba ma jirin waqti ahayd bishii 6 bishii 7 meelahaasay ahayd laakiin markay aan hargeysa soo galay waxay dhaheen kaannana kharajnaa min annaari ila aljanna waxba saasay sheegeen almuhim hargeysaanu nimid waxaan oran karaa mubaalagana iguma ah guri fiyow oo hargeysa aanu aragnay inuusan jirin kulli waa wada burbursanahay maantana guri burbursan ma jiro waa wada quruxsan yihiin hada min nicami shukri illaahi caza wajalla mafaarishta uu ka sheekeeyey akhuuna cabdirasaaqna janaraalka uu ku dhawaaqay aydan isaga dambeyseen ayaanu jawla ku tagnay jawla markaanu u gallay nimanka qadariyiinta ay la socda markaa mid baa iga hormarayo aniguna mutarjim baan u ahay odayaashii meesha fadhiyey meesha jaadka ku cunayey mid ka mid a wuxuu igu yidhi waar wadaad yahow waxaad yeelaysaa nimankan calbeed ee khaliijka nooga yimid waa dee waxaad ku tidhaa waar somalilan dhagaha wax kaba maqashee afkay wax ka maqashaaye ya waar lacag hana siiyeen nimankan anagu culimo waanu haysanaaye lacag hana siiyeen wakaa wadankii wuu naga burburee lacag hana siiyeen saa ku dhe buu yidhi diin waanu haysanaaye culume wallaahi waa runtaa baan idhi culimo iyo diin iyo khayrba halkan waan ugu nimide mid baan ku weydiiyey bahalkan aad cunaysaan imisaa maalintii wadankas waryaa xisaabi karide waa dee waa $100,000 waxaan haddaad 10 casho iska daysaan magaalada ma dhisan lahayd ragga dadkan wadankan waxaa lagu yaqaan moogtahay afkooda ilaahayna waa u furay qalbigooda waxa ku jirana horay ka sheegaan waa London oo kale noqon lahayd hadda mubaalaqa igama ahay kaftan asaas weyn waxaan bas waxa hadda aanu u nimid aanu idinla hadlayno waa intaa un London baad sheegteen adduunka meesha ugu qurux badan baad ka dhisaysaan hadda arrintaas kadib marka insha Allah waan ku ta'yiidinaya waan idinku ta'yiidinaya waxaan ku faraxsanahay wallahi waan ku faraxsanahay odayaasha iyo inta cuqaasha iyo inta maaragtay madaxda iyo intaan aragnay oo dhan iyo warka aanu hayno alaabta way iska dhaafeen waxaa ku haray dadkii iska suuqiga ahaa iyagana insha Allah ta'ala bid'awati والكلام بوجتك دونا هدي إلهي خير كمرك الله شيء توفيق الله نوافجيه دنبج أن الله هدافه كي والدين تنا الله هدافه إلهي هكاب المري ولا لهن سود وي أو أولا حكومة وشعبا وشركات لما أن الله كان هرين إلهي سبحانه وتعالى هكاب المري إلهي هكاب المري رزقه وذا الله بركيه رزقه وذا الله بركيه إلهي وحن كبرينا أولا وقبل كل شيء دين إسلام كإلهي نسي إنه نقصه شكر جدا إلهي نوافجيه مشارق الأرض ومغاربها أن كفافنه وأن دعاة إلى الله وإلى رسول الله أن نقولنا
ilaahay waxaan ka baryaynaa soomaaliya meel kastoo joogtaba ilaahay inuu raxmad iyo naxariis u soo dejiyo in ilaahay cadaaha iyo shaxnaa iyo baqdaa iyo dilka iyo dhaca iyo balaayada ilahay ka dulqaado wabahan iyo cudurkan ilaahay naga dulqaado baan ilaahay ka baryaynaa in sha allahu tacaala markaza dacwa hargeysa ay noqotay in sha allah allah sii faafiyo khayrka allah u faafiyo ilaahay ha ka dhigo meeshii mashaariq alardi wa magaaribiha diinta ilaahay looga soo martiyey allah ha ka dhigo in sha allah inahu waliyu dalika walqaadiru calayh walaalaheen dad baa buka allah caafiyo walaalkeen wuxuu soo codsaday gabadhiisa oo in badan bugtay sanad iyo ka badanba oo saamiye la yidhaah waa u ducaynaynaa fi hada almajlis in sha allah allah caafiyo allah caafiyo أخونا حمزة ويلكيس وبكاء أو جماعة نوغة تمد نيروبي ويلكيسنا الله عافيه ولا لبضانو صعد صبي سيجارة إلهي باك على قرنا يوم عيوذو دي كل قوت عذر كذا الله كعافيه إن شاء الله أخونا اللور الله عافيه عافي ما دقدق الله سيو دمان وحل وحيبك مجلس كان الله هو عافيه أنت يدعينا الله عافيه مسلمين تا مشارق الأرض ومغاربها عندك سو بكتا الله عافيه رزقك الله واسع نوغدق قناعة النفس الله نسيه diinta ilaahay allah nagu sugo ducaatan ila allahi wa ilaa rasuuli illah allah naga dhigo nin walbo inaga mida qalbigiisa waxun baa ku jiraya muraad aad gaad isleeyahay allah na gaarsiiyo muraadkeena allah na gaarsiiyo ilaahay raalli ka yahay وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك